dareenkii jacaylkii iyo raxmaddii nebigu inoo hayay calayhi salaatu wassalaam ayaa ka soo ifbaxday warwar uu ka qabo inaynu ilaahay subxaana wa tacaala rumayn weyno iyo dadaal badan oo uu ku bixinayo dadku inay ilaahay rumeeyaan ayuu ilaahay sii abuurtay ku leeyahay falacallaka baakicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa waxa ay u muuqataa in aad maxamedow naftaada halaagayso oo aad dilayso ku dilayso murugo in ay dadkani rumayn waayeen diinta oo ay qaadan waayeen aawadeed u fiirso laba qodbo meesha ku jiraan nabigu calayhi salaatu wasalaam warwarka iyo ka fakirka nabigu uu ku bixinayay dadku inay ilaahay subxaana wa tacaala ay rumeeyaan ilaa heer uu gaadhay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku yidhi naftaadaad halaagaysa waa qodobka labaad tixgelinta nafta tixgelinta dareemadeeda waxa ay naftu dareemayso naftu waxa ay dareemayso qofku inuu tixgeliyo allihii abuurtay ayaa dejinaya waa nebi mas-uuliyad baa saaran waa ilaahay waa allihii qur-aanka soo dejiyey wuu dejinayaa markuu ku leeyahay waad isku dhibaysaa macnaheedu waxa weyn ha isku dhibin ya ha isku dhibin meelo badan ba qur-aanka ka buuxdaa adigu in calayka ila albalaaq gaadhsiin unbaa lagugu leeyay laakiin yaa qaadanaya yaan qaadanaynin hawl adiga kuu taalla maaha marka maxaa muuqata ilaahay subxaana wa tacaala inuu tixgeliya nafta iyo dareemadeeda iyo waxa gudaheeda ka dhex gooxaya saaxiib waa muhiim inaad ogaato dareemada ku dhex dagaalamaya gudahaaga dareemada kugu soo dhacaya waxaad ka fakarayso waxaa xilli badan kaa qaata waanad ka fakarto waxaa jira inay dadkeenu yidhaahdaan waan isliqsiinaya waan islowsiinaya waxaa la sheegaa cilmigaas manafeedka marka la joogo dareemo gudaha ku nool inaad tirahdo waan isliqsiinaya inay khalad tahay ee ay sax tahay dareemada gudaha ka dhex gooxaya inaad dabadda soo saarto inaad qorto inaad isla garnaqsato inaad tirahdo wareedhe maxaan ka fikiraya maxaa culays ugu haya maxaa caqabad ah oo iga hor yimi waxa noocaya noocaasa dhib kugu haya ka fikirto siduu xal aan ugu gaari karaa shaygan maxaan kaga gudbi karaa dhibaatadan i haysta ya waxaa jirta mid ka mid ah hablaha eelka ilaa khalas siiyo inantaasi markastoo iga soo wardoonayso waxay tirahdaa maalinkaagu siduu ahaa haddii habeen tahayna habeenkaagu siduu ahaa barigii hore waxaan u qaadan jiray inuu iska yahay halqabsahay leedahay laakiin muddo kadib waxaan arkay waxan inuu yahay wax ku talagalay ii weydiinayso waxaan kuli walaal ereygan ah maalinkaagu siduu ahaa ama habeenkaagu siduu ahaa maxaad ka wadaa waxay tiri waxaan ka wadaa waxaa jirta mushkilad yar oo la xallin karayo oo fudud oo qofka shalay ku dhacday tusaale tu kaloo maanta ku dhacday oo la xallin waayey mushkilad yar bay ahayd waa la xallin waaye haddana maanta ayaa mushkiladdii la soo daristay waa la xallin waaye haddana berri baa dhibaatadii la soo daristay waa la xallin waaye dhibaatooyinka yaryar ee maalinlaha ah oo isu tegey ayay mushkiladu weyn oo nafsadeed ay ka soo baxdaa inuu qofku waashaba ay ka soo baxdaa inuu qofku qof muurkiisa iyo maankiisa iyo maskaxdiisu si un maaragtay soo jeedkiisa yacni uu maqan yahay au noqdo dhibaatooyin badan oo nafsadeed ay ka soo baxaan marka saaxiib isla soco naftaada ogow dareemadaada ogow waxa kaa dhex guuxaya ogow wixii dhib kugu ah ka fakar qorshee qaabee qor waddadii iyo qaabka wax kaga qaban lahaydna falowgeedii dadaalkeeda gal waxaan waxba ka qaban karayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wadaah wanaagsana waa ilaahay salaam